ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa daawadayaal waxa ay haatan ku sugan yihiin goobihii ay deganaayeen mucaaradka dowladda si gaar ah dhismahan Xaaji Raage waxaa deganaa Generaal Saadaq John taliyihii hore ee qaybta guud ee gobolka Banaadir sidoo kale waxaa deganaa Generaal Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacde iyo weliba hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ciidamada dowladda ayaa aroortii hore ee saakay waxa ay la wareegeen dhammaan dhismooyinkii halkan ku yiilay halkan weli waa bannaanka hore ee gurigii ay wada deganaayeen Saadaq John Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Indhacde gudaha ayaan daawadayaal u gali doonnaa waa barxadda dhismaha halkan waa barxaddii guriga ay wada deganaayeen mucaaradka dowladda waxa uu u dhow yahay dhismaha madaxtooyadii hore ee Cabdiqaasin ayuu u dhow yahay goobahanoo idil waa barxaddii qolqol ayaan isu dul taagi doonnaa dhammaan guryahan wax jooga ma laha waxaa haatan ku sugan oo keliya ciidamada dowladda gaar ahaan ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad ayaa haatan ku sugan baashan waa qasnada rasaasta hubka iyo lagu keeno gudaha guriga ayaan daawadayaal ku guda jirnaa warbaahinta Nation ayaad nagala socotaan waxaan ku sugannahay halkii ay deganaayeen Saadaq John Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo weliba Generaal Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacde ayaan ku sugannahay weli maynaan ogan sababta rasmiga ah ay ka dambaysa inay ka baxaan maadaama ciidamada dowladdu bilaa dagaal ay kula wareegeen dhismooyinkan walow xalay oo idil cadaadis ay la kulmayeen mucaaradka maadaama ciidanka dowladda ay saldhigyo cusub samaysteen xalay isgoyska kilomitir 4 gudaha guriga ayaan ku jirnaa ma jiro wax ku sugan marka laga reebo ciidamada dowladda oo bannaanka guriga iyo jooga warbaahinta Nation ayaa daawadayaal nagala socotaan waxaan gudaha ugu jirnaa halkii ay joogeen mucaaradka dowladda nawaaxiga halkan habeen ka hor sida aan ka warhayno dagaal xoogan ayaa ka dhacay kaasoo u dhaxeeyay ciidanka dowladda iyo weliba mucaaradka ayuu dagaaladaasi u dhaxeeyay waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh qaybaha sare ee guriga ayaan ku sii soconaa jaranjarooyinka ayaan sii koraynaa warbaahinta Nation ayaa daawadayaal nagala socotaan saaka aroortii hore salaadii subax ayay ciidamada dowladdu la wareegeen guud ahaan dhismahan iyo aagiisa halkaas oo ay difaacyo cusub ka qoteen qaybtii sare ee guriga ayaan soo kornay daawadayaal haddaan bannaanka kore idin tusno magaalada oo idil halkan si toos ayaa looga arki karaa waa meel istiraatiiji ah waana taas sababta keentay in mucaaradka dowladdu ay dhismahan degaan waa meel istiraatiiji ah goobtan meel istiraatiiji ah ay degan yihiin warbaahinta Nation ayaa daawadayaal nagala socotaan saraakiil ka tirsan ciidamada booliska ayaa goobtan ku sugan si gaar ah taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole iyo weliba taliyaha ciidamada Haramcad Kabtan Fanax qolalkii jiifka ayaan soo galnay halkan waa qol jiif ah oo ay saraakiisha degnaayeen mukiifkii ayaa weli daaran ilaa iyo xalay sida ay uga baxeen halkan waa qolalkii jiifka ahaa intan waa qol kale oo jiif ah isna sidoo kale mukiifkii ayaa weli daaran mukiifkii ayaa weli daaran daawadayaal dad meelahan ku sugnaa waxay noo sheegeen in saraakiisha ay qolalkan degnaayeen
sidoo kale toole waa qol kaloo saddexaad oo isagana jief ahaan loo diyaariyey. alaabtu waa mid cusub, waxaad moodaa weli inaan la isticmaalin, oo qorshuhu ahaa mucaaradkii inay in muddo ah halkan ku sugnaayeen, inkastoo weli aynan ogaan sababta rasmiga ah ee ka dambeysa inay goobtan isaga baxaan, marka laga reebay in xiisado dagaal iyo xiisado colaadeed ay goobtan ka jirtay. warbaahinta nation ayaa daawadayaal nagala socotaan. gurigu waa dhismo aad u weyn, mararka qaar xitaa qofka hadduu soo galo waa laga yaabaa inuu ku wareero. saraakiisha dowladda qaarkood oo halkan ku sugan waxay inoo sheegeen in halkan aysan ka tegi dooninba oo ay difaacyo ka qodan doonaan, maadaama meeshu ay tahay meel aada istaraatiiji u ah. magaalada oo idil ayaa laga arki karaa, weli qaybihii sare ma joogno, qaybaha dhexe ayaan joognaa. waa tahay waxaan isku dayi doonnaa inaan bannaankii iyo difaacyadii aan tagno. bannaankii iyo difaacyada ayaan tagi doonnaa. halkan waa barxaddii guriga, halkan waa daawadayaal barxadda guriga weeyaan. barxadda guriga ayaa weeyaan. hoos ayaan u degi doonnaa markan si aan difaacyada kale ilaa iyo cabdiqaasin aan tagno. okay. ilaa iyo difaacyada ayaan tegi doonnaa. warbaahinta nation ayaa daawadayaal nagala socotaan. halo waa tahay warbaahinta nation ayaa daawadayaal nagala socotaan. halkan waa barxaddii, qashiman ayaa meeshan quban, ma garanayno sababta. bannaanka ayaa ku sugannahay daawadayaal. waxaan tegi doonnaa difaacyadii cabdiqaasin maalmahan oo idil halkaas ku yiilay. goobahaas ayaan tegi doonnaa. waa tahay warbaahinta nation ayaa daawadayaal nagala socotaan. waxa aan ku sugannahay guriga ay degnaayeen cabdiraxmaan cabdishakuur warsame, saadaq john iyo weliba indhacde. ciidamada dowladda ayaa saakay halkan la wareegay oo amnigooda sugaya. saraakiil ciidamadan horboodeysa ayaa ku sugan. waddadan waa waddadii cabdiqaasim daawadayaal. waddadan waa waddadii cabdiqaasim aadaysay. hadda gurigii ayaan ka soo baxnay. waddadan waa waddadii cabdiqaasim. dhismooyin waxbarasho ayaa goobahan ku yaalla. waa albaabka weyn ee guriga laga galo, waa albaabkaas weeyaan. ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee haramcad ayaa goobahan oo idil daawadayaal ku sugan. ciidamada haramcad ayaa goobahan oo idil ku sugan. dadka ayaa si caada loogu oggolaaday saaka inay waddooyinkan isticmaalaan, inkastoo ay xirnaayeen shalay ilaa iyo xalay, maadaama goobtu ay ahayd furin dagaal oo ay ciidamo is-horfadhiyeen. saakay jawigu waa uu degan yahay, inkastoo cabsida guud ee magaalada ka jirto ay tahay mid la wada dareemayo. mucaaradkii halkan ku sugnaa xooga aan helnay waxa ay sheegayaan inay u wareegeen dhanka iyo xaafadda balamuudo ama siigaale, halkaas oo ay isugu dhowaanayaan, maadaama kuwo hore oo ka tirsan mucaaradka hore ay ugu sugnaayeen qaybo ka mida degmada Howlwadaag, gaar ahaan degaandega halka loo yaqaano isgoyska dabka ilaa iyo hotelka weheliya is haysteen. waddadan waa waddadii cabdiqaasim. goobo waxbarasho ayaa daawadayaal halkan ku yaallay oo ay jaamacado muhiim ugu yihiin. jaamacadahaas waxaa ka mid ah jaamacadda muqdisho, jaamacadda SIU iyo kuwo kale. xaaladda ayaa saakay degan. xaaladdu saaka waxa ay tahay mid degan. halkan hore maysan oga jiri jirin, waa koolbuwaardiye ay samaysteen mucaaradka. difaacyo ayay goobtan ka qoteen, taas oo ku caddaynayso in maalmahanba diyaar aysan u ahayn inay goobahan isaga tagaan. laakiin dad badan ayaa filan waa ku noqotay tallaabada saakay ay uga baxeen goobahan mucaaradkii. dad badan ayay arrintan filan waa ku noqotay.
waddadan waa waddadii cabdiqaasin weeyaan. waa waddadii cabdiqaasin daawadayaal. dhinacan dadku si caadi ah ayay u isticmaalayaan waddada. waa tii tarabuunka ka imaanaysay ay weeyaan waddadan. dhinacan kalena waa waddadii kilomitir 4 aadaysay. goobahaas aragtaan waa goobihii shalay oo idil warbaahintu ay soo sawiraysay oo ay difaacyada uga qodnaayeen mucaaradka dawladda. ganacsigii ayaad mooddaa inuu haatan si tartiiba u furmayo. xarunta shirkadda isgaarsiinta Hormuud ayaad aragtaan oo furan. marka xaaladdu saakay daawadayaal waa sidaas. ma jiro wax iska hor imaad iyo wax ciidan is hor fadhiya aaggan ma jiro. dhinaca isgoyska dabka iyo wixii ka jiro iyana waxaan isku dayi doonnaa in aan tagno si aan u soo ogaano bal waxyaabaha dhinacaasna ka jira. warbaahinta nation ayaa daawadayaal nagala socotaan. waxa aan ku sugannahay goobihii aadka isha loogu hayay saacadihiina soo dhaafay. waa hagaag. aroortii hore ee saakay sida aan hordhaca muuqaalbaahiyahan tooska ah aan idinkugu sheegnay ayay ciidamadu dawladdu halkan ay soo gaareen oo ay la wareegeen. waxaa dhismahan ku sugan taliyayaal ciidan. waxaa horboodaya taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole iyo weliba saraakiil kale. warbaahinta nation ayaa daawadayaal nagala socotaan. halkan waa jaamacadda Muqdisho qaybta post graduate programka ama daraasaadka sare. waxay ka mid ahayd meelihii labadii maalin ee soo dhaaftay ay xiisadahan saameeyeen. waxbarasho ah maana ka jirin. sida barahooda bulshada ay ku soo qoreen habeenadii la soo dhaafayna ardayda ayay u sheegayeen inay fasax yihiin. halkan waa jaamacadda SIU ama Somali International University. iyana waxa ay ka mid ahayd meelaha ay saameeyeen dagaalada. ma jirin waxbarasho ah. iyana ardaydooda ayay u sheegayeen inay ay fasax yihiin oo aanay wax waxbarasho ah jirin. dhinaca horteenna xitaa daawadayaal ilaa Imaam Shaafici difaacyo ayaa uga qodan. balse intan ayaan ku ekaan doonnaa. waa albaabka laga galo dhismayaashii ay deganaayeen mucaaradka dawladda si gaar ah. gurigan markii hore toole sida aan macluumaad ku helnay Cabdiraxmaan Cabshakuur ayaa daawadayaal loo kireeyey oo la doonayay inuu dego. balse waxaa maalin ka hor gurigan isna soo degay Generaal Saadaq John. indhacda waxa uu ahaa qofkii Cabdiraxmaan gurigan u kireeyey, amnigiisa u sahminayay oo maalmahan ku sugnaa. balse maalin ka hor ayuu Saadaq soo degay, taas oo xiisadda sii laba laabtay. jodariyaal ayaa meelahan daadsan. waa mahadsantihiin daawadayaal. intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa tabinteennii tooska ahayd ee ku saabsaneyd bal waxa ka jira goobihii maalmahan oo idil isku horfadhiyey.